sidoo marka hore sidee u aragtaa tartan noocan kala in laga qabto magaalada waa mahadsantahay Raja TV-na waa soo dhaweynayaa aad bay muhiim ugu tahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo sportiska xiiseeya ama dheela ama daawadaba in barnaamij noocan oo kala ah oo muxuu ahaa isdhexgalka bulshada soo kordhinay oo kubadda cagta in loo qabto muhiim u tahay waana sababta aanu halkaan maanta u taaganahay Raja TV-na waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin barnaamijkan quruxda badan ee aad markaasi ugu talagasheen dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada Muqdisho ku nool inaad kaabkan u qabataan waa idinkaga mahadcelinaya tartamo fara badan oo isdhexgal la soo qabtay koob fara badan la soo ciyaaray laakiin kan uu ka duwan yahay dhammaan koobkii hore maxaa yeelay waxaa ka qayb galaya naadiyo ku ciyaaraya tartanka kooxihii ayagu ay taageerayeen waana markii ugu horreysay la qabtay taas maxay ka dhigan kartaa dabcan kulan kasta oo kubadda cagta ku saabsan oo dhalinyarada ku ciyaarayso waxaan ognahay sportsku inuu yahay isdhexgal jacayl iyo sidoo kale dhalinyaro muxuu ahaa jir ahaan caafimaadkooda uu aad u wanaagsanaanayo maantana dabcan kulan muhiim ah ayaan dheelnay gaar ahaan taageerayaasha AC Milan iyo Inter Milan ba ay halkaan ku dheeleen taasna waxay ku tusaysaa in markii ugu horreysay kulan saan oo kala uu dhex maray labada kooxood oo aad u xifaalsama inkastoo dhalinyaro walaalo oo saaxiibo ay halkaan ku dheelayeen oo aan laba oran karin ba kulan weyn oo muxuu ahaa xamaasad gaar ah ayuu ahaa maadaama labada dhalinyaradu ay yihiin dhalinyarada iyo xaafadda marka natiijo kasta oo ka soo baxda waxa ka wanaagsan isdhexgalka iyo miraha wanaagsan ee aan ka guranayno kulan saan oo kala in aan maanta daawano kulamo waaweyn ah laakiin kulankaas kulamadaas uu ka duwanaa kulankan waxa ciyaaray laba kooxood isku magaala laba kooxood hal garoon ku ciyaar laba kooxood xafaankooda aad u muhiim ah maxay ka dhigaysaa AC Milan ahaan galabta in shan gool lagu ciyaaro wallahi waxay nooga dhigan tahay kulan muhiim ah inaan dheelnay taasna waxa ka sii muhiimsan in dhalinyaradu ay isdhex galaan natiijo waxba ma soo kordhinayso Inter Milan iyo AC Milan magac ahaan waa la wada dheelay laakiin dhalinyarada dheelis waxa ahaayeen dhalinyaradii xaafadda dhalinyaro isku kooxa dhalinyaro saaxiibo ah marka natiijadu waxba ma soo kordhinayso ciyaar waa kubadda cagta marna waa laga badanaya mar waa badanaysaa laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa waxay tahay aad iyo aad waa taasaan aaminsanahay in طبعا كلن كان سان هore u sheegay waa kulan kamida kulamada loogu jecel yahay hayeeshe waxaanu daawanaa badana kooxaha Talyaaniga ee si labadan kooxood markay leelayaan inuu yahay kulan weyn oo derbi Talyaani ah laakiin kulankan waa kulanka ciyaalka xaafadda marka intaas laga soo tago kooxdaar hadda waxaan fara badan ka tagtay sida Liverpool Arsenal Barcelona Inter Milan Juventus kooxahaas shinta kooxood soo baxday yaa isleedahay maanta adiga way wanaagsanaan lahayd inaad mar kale haddana garoonka u timaado inkastoo wallahi waqtigeedu iska yar yahay oo markii ugu horreysay kulan halkaan aan macquul ka daawado waliba ana xiiseynaya kulankan wax badan aynu daawanay reer galbeedka ama labadan kooxood oo Talyaaniga iyo labadan kooxood oo Talyaaniga Milan iyo Inter Milan halkaan aan xiise ugu qabay in taageerayaasheena iyo wiilasheena halkaan aan ku daawado iyagoo labada kooxood markaasi kala matalaya marka kulan qiimo leh oo ahaa natiijaduna waxba ma soo kordhinayso Raja waa ku mahadsan yihiin kulankan ee soo qaban qaabiyeen koobkan oo loogu magac daray Raja Cup oo loo qabanayo taageerayaasha kooxaha Yurub ee magaalada Muqdisho ka dhisan dhalinyarada ku nool kubadda waa jacayl waa isdhexgal sidaan horeba u sheegaba best sports waxa leeyahay la moogaanina waa company weyn oo saameyn dhinaca aqabka sportska markaas ku yeelanaya magaalada Muqdisho guud ahaan Soomaaliya anigu waan u tagay waan ka soo gatay marka waxaan leeyahay dhalinyaradu iyaysan moogaanin shirkadaas amaan weyn way iga mudan tahay aniga gaar ahaan best sports hore u socda leeyahay